السلام عليكم. waxaan u baahannahay inaan ka korno waxyaabaha aan micnaha badan ku dhisnayn. Waxaan u baahannahay inaan iska diidno waxyaabaha na kala dila ama waxyaabaha na kala geeya. Waxaan u baahannahay inaan sare u qaadno himilada iyo hamiga. Waxyaabahaas waxaa la yidhaahdaa luqadda falsafadda iyo luqadda diintaba transcendency, ama inuu qofku ka sara maro ama yara kor uga kaco waxyaabaha aan micnaha badan ku dhisnayn. الترفع والتعالي afka carabiga. Arrimahaas waxay leeyihiin muhiimad gaar ah maxaa yeelay qofku haddii uu hamigiisa iyo fikirkiisa uu ka weynaysiiyo waxyaabaha macnaha maalintaas uu la nool yahay, waxaa imaanaysa in xaaladiisu ay si wanaagsan isu bedesho. Haddii aan arrinkaas ku kabo tusaale kooban, tusaale iska caadiya macnaha, waxaa jira dadka sigaarka caba ama qaadka cuna, waxay aaminsan yihiin ama ku qanacsan yihiin intooda badan inay waxaas yihiin wax xun, inaysan u fiicnayn caafimaadka, inaysan u fiicnayn dhaqaalaha, inaysan u fiicnayn xataa wax soo saarka qofka. laakiin maca daalika in badanoo ka mida waxay ku fashilan yihiin inay iska joojiyaan maxaa yeelay waxay mar walba ka fekerayaan sagaarkii iyo qaadkii. laakiin haddii ay samayn lahaayeen transcendency oo fikirkooda ay u gudbi lahaayeen waxyaabaha imaan kara ama dhici kara, haddii ay hawshan ku dheeraadaan ama ay iska daayaan, waxaa aad ugu sahlanaa lahayd inay go'aan ka gaaraan. waxaa arrinkaa lamida waxaad arkaysaa Soomaali fara badan oo boqolkiiba boqol ku qanacsan ama fahamsan dhibaatada ay leedahay macnaha qabyaaladu ama kala qoqobka bulshada iyo wixii aan ka dhaxalnay qabiilka iyo colaadii sokay. laakiin maca daalika aan iska day karin qabiilka. maxaa ugu wacan waxay mar walba ku fikiraan kana fikiraan qabiilka laftiisa. waxay marka u baahan yihiin dadka noocaasa inay fikirkooda sare uga qaadaan macnaha qabiilka oo ay ku fikiraan waxyaabaha kale oo imaan kara haddii qabiilka laftiisa laga gudbo, sida qarannimada, midnimada, wadajirka, soomaalinimada, barwaaqada iyo sharafta lagu yeelanayo dunida inteeda kale. intaa haddii aan kasoo gudbo, isaga sheekeymayna dabcan muhiimadda ay leedahay midnimada iyo musiibooyinka ka dhasha ama ka dhala kara kala tagga iyo kala qoqobnaanta. dabcan anaga xaaladina waa la soconaa, laakiin haddii aan maalan fiirino kale yemen oo kale ama libiya ama afghanistan, waxaad arkaysaa waddamadaas inay sanada fara badan colaada ka jiraan, inay jiitamayaan dabcan marka laga reeba libiya. laakiin hal ciladay wadaagaan waddamadaas. ciladaas waxay tahay bulshadii ayaa kala qaybsan. bulshadu mar hadday kala qaybsan tahay oo qolaba ay si gooniya ayadoo daacad isugu tahay oo ay aaminsan yihiin ayagoo dadka kale inay isaga sokeeyaan, waxaa aad u adkaanaysa in ay isku waafaqaan ama isugu yimaadaan hal meel oo ay hore uga socdaan. waddanka yemen oo kale dadku waxay daacad u yihiin qabiiladooda, xaashid, akiil, banu xamdaan, yacni waa ayagiyaa waxaa ka dhexeeya tartan iyo hinaas iyo xifaaltan. maxaa imaanaysa marka? waxaa imaanaya in laga faa'iidaysto, in dadyo kale intay yimaadaan ayay kala isticmaalaan, ayagii la kala adeegsado, ayagii la isku diro, sidaasna ay ku noqdaan dadka ugu liita dadka. libiya markii laga qaaday khadaafi, waxaa hadda aad u adag in dib laysku soo celiyo maxaa yeelay waxay u kala qaybsan yihiin qolooyin, qadaadifa, warfaalla, yacni iyo kuwo kaloo tiro badan. marka afghanistan waad aragteen 40 sano ayaa waxa ka soo colaado, haddana ma istaagayaan maxaa yeelay dadku waxba kama dhexeeyaan. marka wadamada diriska Iran, ii sheega Pakistan, Hindi, China, wadamada kale Uzbekistan, Ruush, Maraykan waa la iska isticmaalaa. ayagii marka maxay u yihiin victims? waxay victims u yihiin dhaqan xumadoodii iyo qaabdarroodii bas. laakiin hadday noqon lahayn dad midaysan, waxaa adkaa lahayd in la helo meel laga soo galo. ummadda Soomaaliyeed marka waxaa la gudboon inay fahmaan dheesha iyo halka wax ay ka halaysan yihiin iyo halka wax laga sixi karo. haddii aad rabto inaad wax saxdo, waa inaad ka abaarta midnimada ummadda. haddii ummaddu ay midowdo, wax walba waxay u xalismayaan hab tilqaa'i ah ama hab automatic ah. maxaan ka rabnaa marka madaxweynaha Soomaaliya? waxaan ka rabnaa hal arrin. madaxweynaha xilliga hadda la joogo kama rabno inuu noo dhiso wadooyin, kama rabno inuu noo dhiso daraa dheerdheer, kama rabno isbitaallo. waxaan ka rabnaa hal arrin. waxaan ka rabnaa inuu ku dadaalo uu dhiso damiirka, dareenka iyo kalsoonida dadka. waa inuu noqdaa qof ay Soomaalida ku midowdo. waa inuu muujiyaa inuu yahay qof leh waxa ay dhahaan macnaha symbolic value, qof macnaha dadka isu keeni kara oo ay dadku ku midoobaan. macnaha anigu shakhsiyan waa aaminsanahay inuu yahay qofkaas. waxaan rajaynayaa macnaha inay Soomaalidu fahmi doonaan in dunidan aysan jirin ummad ama dal kale oo uu maamulo madaxweyne malag ah ama uu nebi la joogo. dadka dhan waxaa waaye dad lamida madaxdayna, laakiin dadka wax garta waxay samaynayaan qof walba waxay siinayaan fursad, waxay fiirinayaan macnaha waana uu kaalmaynayaan dhibka hor yaalla.
anagu marka waxaan u baahannahay madaxweynaha inuu ummadda isu keeno ummadda hadday isu timaado oo dadkaanu ayagu ay midoobaan annaga ayaa dhisanayna guryahayna annaga ayaa dhisanayna waddooyinka annaga ayaa dhisanayna isbitaalada annaga ayaa wax walba qabsanayna laakiin waxaan u baahannahay cidna midaysa cid isu kayna keenta marxaladda hadda aan taagannahay waxaan u baahannahay laba arrin oo keliya arrinta koobaad waxay tahay dadka soomaaliyeed sagaashamaadkii ayagoo taagan buur dhakadeed ayay gadaal u dhaceen rafaad fara badan kadib hadda waxay bilaabeen inay buurtii dib u soo koraan waxay u baahan yihiin marka dad uga hormara dhakada buurta oo inta xerga usoo daadiyo jiida waxaa kaloo u baahan yihiin dad gadaal ka istaaga oo dhabarka ka riixa laakiin uma baahna dad halkaan ka haratiya ama dad lugta ka qabtay haddana ku celiya boosho kale uma baahna marka dadka siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo dadka ilaahay caqliga siiya waxaa laga rabaa inay fahmaan in lagu jiro critical stage ama marxalad khatar ah dadka soomaaliyeed dareenkooda iyo shucuurkooda qarannimo iyo ummadnimadu aad ayay u sarreeya waxaa loo baahanya marka inaan la dhaawicin inaan arrinkaas la dhibaataynin dadkana inaan dib loogu celin bohosha ay ka yimideen waa mas-uuliyaddaas qof kasta oo waxgarta maanta waa dareensan yahay marka waxaa rabaa arrinkaas in laysugu kaalmeeyo madaxweyne keligiis waxba kama qaban karo ra-iisul wasaare waxba kama qaban karo qof kaligeed wax ka qaban karta ma jirto laakiin markaan awoodda midayno oo qof walba meesha ay joogto ay ka qabato waxa ay qaban karto waxaa hubaalah inuu imaan doono isbeddel dhaba waxaan kusoo gebagabeynayaa marka ahmiyadda ama awoodda rajada iyo wax suuraysiga dadka ama qof walba wuxuu marti u yahay waxa uu sawirto iyo waxa uu rajeeyo iyo habka uu fikiro xaqiiqooyinka bani aadamka aad u jeediin oo dhan waxay ka dhashaan sawirka dadku ay maskaxda gashadaan haddii marka aad ku fikirto burbur iyo qabiil iyo qax iyo dhibaato tii unbaad ku jiraysaa laakiin haddii aad fikirkaas inta bedesho aad ku bedesho barwaaqo iyo inaad istusto inay soomaaliya midowday in hore loo socdo in dalkii iyo dadkiiba ay macnaha ka gudbeen sidii hore ay hore u ahaa jireen oo aad rajadaada halkaa aagayso waxaa hubaal ah muddo kooban rajadaas iyo suuraysigaas inuu isu bedelaya xaqiiq anigu shakhsiyan waxaan ku qanacsanahay soomaaliya inaysan dib ugu laabanayn dhibaatadii ku dhacday iyo wixii ay ka timid waxaan aaminsanahay in la gaaray xilligii aan hogaami lahayn geeska afrika iyo afrika waxaa la gaaray xilligii aan gacmaha isqabsa lahayn kana gudbi lahayn beenta iyo waxyaabaha aan ku burburnay waxaan rabaa inaan kusoo gebagabeeye marka qabiilka iyo kala qoqobnaantu waxay anti ku yihiin dowladnimada qabiiladu weligoodba waxaa waaye waa unugyo isdagaalaya waxay isku haystaan daaqsin waxay isku haystaan ceelal biyo dadki marka geelooda uusan isla daaqi jirin ama ceelasha isku dili jiray caqligoodii inta soo qaado oo magaalo keento iskuguma dari kartid awood siyaasadeed iyo mid dhaqaale waxaa hubaalah way isku laynayaan marka arrinkaas waxaa marka aad ku oga kartaa waxaa ku sheegi kara caqliga waxaad ku oga kartaa cilmiga waxaad ku oga kartaa taariikhda marka inaanan waxaa habboon inaanan isugu been sheegin waxaan waxba noo tarayn oo aan dhibaatana ka gudbinayn waxaan u baahannaha marka inaan soomaalinimada qaadano midnimada inaan qaadano walaaltinimada inaan qaadano horena aan u socno kulligeyn oo aan asaagayna wax la qabsano dunidana aan barno inaanan ahayn qabiilo baahan oo oon iyo abaaro iyo colaado aan ka bixi karin waana salaamantihiin